tan iyo 1974 markii ay dowladda dhexe ee Soomaaliya dhistay laamigan ma uusan helin wax daryeel ah waxaana uu burburkiisu sababay dhibaatooyin isugu jira dib u dhac ganacsi iyo khasaarooyin naf iyo maal ah haddaba si looga baxo xaaladahaas waxay maamulka iyo shacabka degmada Buurtile wada tashi iyo iskaashi dhaqaale kadib bilaabeen dhismaha laamigan iyagoona ku tashanaya jeebkooda dowladooda iyo dhammaan muxsiniinta Soomaaliyeed si habsami loo socdo shaqada dhigitaanka dhismaha laamiga halbowlaha ee gudaha magaalada Buurtile wajigiisii labaad saaka waxa uu marayaa heer ku dhow gabagabo waxaana uu ka soo bilowday kadinka hore ee Hotel Bis iyo Hotel Cabdicasiis asagoona ku socda dhanka controlka magaalada Buurtile shaqadii hore ee ka socota waxaana wada shirkadda Kibaarko dhismaha laamigani waa wajigii labaad heerkiisii saddexaad oo gabagaba madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo xukuumadda Tigsiyatayeen waxa ay ballan qaadeen inay iyagu qayb ahaan u qaadanayaan dhismaha wajiga saddexaad ee laamiga halbowlaha ee gudaha magaalada Buurtile kadib markii ay shacabka reer Buurtile dhameeyaan wajiga labaad ayagoo hore u dhameeyay wajigii koowaad ee dhismaha laamiga Xudin Maxamed Xaashi oo kamid ah guddiga horumarinta iyo dhismaha laamiga gudaha magaalada Buurtile waxaan u sheegayaa in hawshii laamigu ay sidii loogu talagalay u socoto shaqadina ay meel fiican marayso qaybihii guduhu sidii loogu talagalay inay kaalintoodii uga soo bixeen qurba joogtiina Umar Yuusuf Khayr Allah siiyaba warbixintoodii inoo soo gabagabeeyay waxaan ka codsanaynaa dhammaan inta hawli noogu dhiman tahay ama shaqo noogu maqnayd inay noo soo degdegaan oo noo soo dhaqsadaan oo noo dhiftin lahaadaan oo noo dhugma lahaadaan markan baan u baahanahay haddii aan wax dhisanno dee baahidu waa iska yaraanaysaa hadhowto qofka laamiga hadduu ka hor dhismo waxa dhici karta inuu hadhow tashalaayo oo yiraahdo waagi haddaan wax ku darsan lahaa sadaqa jaariya meeshaan iga baaqatay sida daraadeed si sadaqo qurux badan oo sadaqa jaariya ay u muuqato waxaan leenahay qof kastoo intuu socdo hawshu wax ku soo darso dadweynihii ka qayb qaatay dhammaantiis waa u mahadcelinaynaa waana u ducaynaynaa waxaan leenahay jazaakumullahu khayr kuwa hawsha hadda gacanta kula haya oo noo maqan waxaan leenahay ilaahay ha idin fududeeyo meelaha wax ka soo saaraysaan waxaan ka mahadcelinaynaa xubno ka mid ah dawladda oo gacan fiican oo naga soo gaartay oo aan rabin magacooda in halkan ka sheegno waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin dawladdeeda Puntland xubno ka mid ah oo wax naga soo gaareen intaan codsi u gudbisanay xubnaha aan wali jawaabta ka helin oo dawladdeeda ana oo xubnaha ama fulin ha ahaadeen ama baarlamaan ha ahaadeen xubnihii aan sida gaarka ula hadalnay oo aan contribution shakhsiyan idin ka rabnaa kuwiin wax noo soo dhiibay waa mahadsan yihiin ilaahayna ajar iyo xasanaad ka siiyo kuwii aan wali aan wax ka helinna waxaan ka codsanaynaa inay noo dhaqso lahaadaan oo marakan baan u baahanahay ay noo soo diraan baan aad iyo aad uga codsanaynaa dadweynaha reer Buurtile waxaan leenahay hawshii wali hawlka madawlayn wali waa hogadii hawsha lagu dhaqsado aan wadno si fiican bay noogu socotaa yeynaan daalin wax yar baa inoo haray maanta waxaan joognaa maalintii saddexaad oo runtii maalin muhiim ah waxa maalintii saddexaad la saarayaa laamigii qayb ka mid ah jidka halbowlaha ee dhexmara degmada Buurtile sida aad u jeedaan shaqadii baa socota kambaniga Kibaarko guddiga horumarinta degmada iyo bulshada reer Buurtile iyagoo isku duuban runtii waxay muujiyeen dadaal aad u weyn iyo maaragtay horumar laga dhex wado degmadii Buurtile iyo laamigeedii iyo bilicdeeda mar walba aniga waxaan rabaa inaan si gaar ah u taargadgareeyo bulshada qurbaha jirta ee deegaankan ka soo jeeda ama Puntland ama Soomaaliba meel kastoo ay joogaan mar walba waxaan jeclahay inaan ka hadlo qoondadii aan ugu talagalnay inaan kaga qayb qaadano lacagta ku baxaysa jidkan oo $90,000 ahayd oo lacagan hadda 30,000 dhamayn ay ka timid xagga qurbaha oo ay soo gaartay guddiga kaalinta inaga aan kaga jirno maaragtay isku tashiga iyo lacagta ku baxaysa jidka cid kale oo buuxinaysa ma jirto qoondadii inaga leeno ku talagalay marka waxaan rabaa inaad maskaxda ku haysaan oo aad mar walba la socotaan xaaladdu meeshay marayso waxa la rabaa lacagtii inaynu bixinno wixii ina ku dhimanaa dadaal bay u baahan tahay arrintani ma aha arrin maaragtay sugaysa qofku inuu isdib dhigo ama maaragtay uu wixii uu ku bixin lahaa dariiqan uu ka masuugo ama uu la daaho walaalayaal marka waxaan ku celcelinayaa oo mar walba idinku baaqayaa lacagtii inaad qaybtiina ku dhimanayd aad soo dirtaan
dhamme qojabe goon cadaawe taliyihii hore ee ciidamada madaxtooyada dowladda puntland ayaa haatan ila taagan taliye waan salaamayaa TV-ga iyo idaacadda dowladda puntland halkaan shaqo aad iyo aad u wanaagsan baa ka socota waa guul reer puntland gaareen waxaan leenahay waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer puntland gaar ahaan dadka degmada Buurtile hadda kuwii hore wax baxshana waa ku mahadsan yihiin hadda lagama quusan wax labaad baa laga rabaa kuwa aan bixinna waa laga rabaa halkan waxaan rabaa inaan si gaar ah uga mahadceliyo kabaniga Bikaako oo hawshan qabatay wax badan oo ayada jeebkeedana ku bixisay waxaan leenahay ajri xasan Allah in ka siiyo waxaynu ku waajoodankiina aad kula hawaad qabateen diiwaanimo mahadcelinayna hawshan hadda hawl fiican oo degmada Buurtile qabatay weeye isku tashigii tani waa rajadii reer Buurtile waa mustaqbalkii reer Puntland iyo waliba dantii ummadda Soomaaliyeed muwaadin fadlan ka soo qayb qaado dhismaha laamiga halbowlaha ee gudaha magaalada Buurtile shirkadda Kibaarko ayaa sida u jeedaanba waxa ay wada shaqo xawli leh iyadoo la isku wado tigitaanka laamiga duulayntii iyo waliba trade-tiba Guuleed Saajid Jaamac barnaamijka TV-ga dowladda Puntland degmada Buurtile ee gobolka Nugaal